This is Giirebuytech from Giirebuytechconsultit IT. And Cashirkii also learning how to use Windows Powershell ISE. Cashirkii tobnaad. Cashirkaan tobnaad wuxuu ka saabsan yahay command kale oo la yiraahdo get process. Marka hore waxaan tegayaa Windows Powershell ka tegayaa aan ku tusinayaa Windows Powershell ka tegayaa straight. Cashirkaan waa cashirkeena get process iyo get help ilaahisha waxay ka shaqada qabtaan ayaan rabaa inaan tuso. Ku dheeraamayo halkaas search ku qoran tahay aan garaacayaa ku taabgaraynaya Powershell Windows Powershell ISE. Markuu ii soo baxo waan kaliin garaynaya halkaas waxaa waaye Powershell koraan ka shaqaynaya galaaskii hore CLS aan garaacaya kaliin u noqonaya. Halkaas ayaan rabaa inaan ku taabgarayo command-ka oo cashirka uu ka saabsan yahay la yiraahdo get/process. marka aan garaaco get/process saddexda xaraf aan garaaco oo highlight gareysmaya. markuu highlight gareysmo waxaan rabaa inaan iraahdo qaybtan aan ka yareynayo zoom out-ka. markuu highlight gareysmo saa aragtaan enter ayaan taabanayaa. halkaas aan tegayaa enter ayaan taabanayaa. Get process waa information badan waaye. information ku wuxuu ku siinayaa meesha ugu koreysaan tegayaa. marka aan tago inta ugu muhiimsan marka hore wuxuu ku siinayaa workstation-ka numberka workstation-ka ID CPU-ga numberkiisa ID numberka iyo process name-ka. qaybta hoosaan tegayaa waxaan rabaa inaan sii garaaco get process. waxaan rabaa inaan sii garaaco halkaas ayaan waxaan ku taabgareynayaa ama flaarta kor ayaan halmar taabgareynayaa. waa aragtay space aan leeyahay waxaa ii soo baxay get process. marka for example get process waxaan rabaa inaan taabgareeyo name-ka slash aan leeyahay name dan space aan leeyahay. marka wuxuu siinayaa waxyaalaha computerkayga ama CPU-ga oo ku jiro. halkaasaan rabaa for example hal tusaale inaan idinka siiyo OneDrive ay ku jiro. marka OneDrive markaan name-ka dhaho halkaasaan one ku qorayaa OneDrive OneNote your phone waxaas dhan laakiin OneDrive-kaasaan rabaa. marka aan highlight gareeyo OneDrive-ka wuxuu siinayo aan rabaa inaan idin tuso. OneDrive-ka information-ka laftigiisa ayuu siinayaa. wuxuu siinayaa workstation-ka CPU-ga iyo meeqa OneDrive ay ugu jiro. inta hal OneDrive ay ugu jiro. process name-kana waa kaas waa aragtaan. ku dheeraamayo halkaas ayaan rabaa inaan haddana aan dhaho inaan isku daro oo cashirkan muhiimkiisa uu yahay get help iyo get process information-ka ayagana siinaya inaan kula wadaago. halkaasaan leeyahay get help aan leeyahay. get help-na galaaskayga horaan ka soo hadlay information badan waaye. space aan leeyahay haddana get waxaan leeyahay slash saddexda xaraf oo ugu horeeya markaan garaaco wuu siinayaa get process. markaan dhaho get slash haddana waxaan leeyahay process. markuu highlight gareysmo haddana space aan leeyahay enter aan leeyahay. marka haddaba u aragtaan relative-ka uu ku siinayo get process ama get help. debug process uu ku siinayaa. sidoo kale waxaa ka helaysaa get process start process stop process.
waxaan oo dhan waxa waaye CDM led wax la dhaho CDM ama command link wax loo yaqaano cashirka marka waa cashir gaaban weeyaan waana cashirkii tobnaad aan ka soo hadalno learn how to use Windows Powershell ISE waxaan isku arki doonaa cashirkeena kale